بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan sameynaa project ah soo bandhigaya qoraal amaba tagas qoraalkaasoo aad ku qorayso wixii aad rabto. marka xataa aan create new project kadibna waxaa bixinayaa hadda anu hello world iconka ama sawirka rabta ay soo saaranaysaa. marfaasi settingka haddaan u yimaado package nameka waxaan ka dhigayaa hadda anu hello world baan ka dhigayaa. waayahay project namekana hello world. waayahay markaas saa ka dhigo kaladhada sidoodan ku daynayaa. version version 1 waayo hadda waxaa odhanaa create. waayo markuu pageka cusub saa inoogu soo furo waxaa koobaad isticmaalnaa waxa weeye tagaskaas halkaasoo dhigaysaa. kadibna xaggan hoose caadi ahaan iyada videoga ma sameynayo ma sharxayo, balse mid walba markaan marayo ayaa sidiisa u sharxaya. markaa waana u fiirsataa maalin walba laga yaabo inay xabid ku soo sharxayga ama laba ama saddex. marka imikoo kale kaa size-ka ayaan maanta isticmaalnaa tagas size-ka oo ku dulfanayaa. xaggan waxaa laga bedelaa size-ka ama shaygu size-ku leeyahay. imika waxaa ka dhigayaa 20 haddan doonaan ka badin karaa 30 kulmuu sii weynaanayaa hadda yarashana oo sii yaraanaya. markii intaa aan ku qorno meeshaasoo kale xagga abc ama tagas ay ku qoran tahayna iyadana waxaa laga bedelaa qoraalka ku dhex qoran tagaska. hadda tagas view ku dhex qoran base xaragaanooyin ku dhex qoro hello world. intaa markaan ku dhex qoro ran baan odhanayaa. waa projecti amaba application sameyntiisa aad fudud tahay, waana basic oo bilow. marka uu install ku dhahdo waa taabanaysaa kadibna open baan taabanayaa. sawir arkaysiinba horta applicationka hello world baa bixinay waana taa halkaa kasoo muuqatay. sidoo kale qoraalkan dhex dhigna waa kan oo hello world. waay haddaba bal haddii aan isku dayno in mid wax kale ku darno waxaa noqon karaa linearka oo loo isticmaalo in waxyaalaha la dhex dhigdhigo ashyaada oo sidii bogas wax lagu dhex ridayo kala ay soo qaadanaa. haydkiisan tegaya match parent baan odhanayaa. hadda match parent idhaahdo yani dhirarkiisa hoos ahaan u fisamaya sawir arkaysiinba u fisamay. kadibna waxaan soo dhex dhigaya hello world. iminka hello world waxay dhex taalaa linearkii waan iga taabtay hello world wataa. haddaba linearkan ku dulfanaya waxaan tegayaa meesha ay ku qoran tahay gravity. kadibna waxaan ka dooranaya center horizontal iyo center vertical. center horizontal waxay ka dhigan tahay yani bartanka dhig marka la eego jiif ahaan. center vertical waxay bartanka dhig marka la eego dhar ahaan. isagoo arkaysiinba bartankan soo dhigay hello world. haddaba waa hello world markii saa bartanka inoogu taalo waxaan tegaynaa event on click baan taabanayaa. on click waxay ka dhigan tahay marka tagaska ama qoraalka hello world uu qofku ku duldhufto maxaa dhacaya. on click haddaba halka waxaa idinku tusayaa hal block. soo kale way jiraan blockyo kale balse hal block oo xiriir la leh tagaska ama qoraalka blockka weji amaba koodhka. soo kale kana xiriir ayuu leeyahay balse fiidyada kale ayaan isagoo isticmaali doonaa. kanaynu maanta isticmaalaynaa tagas qoraalka dooranaysaa tagas v1 ay odhanaysaa. halkaa hadda waxaa ku qoran tagas v1 balse haddaan rabo inaan magaca kasoo bedelo oo aan hello world ka dhigo waxaan tegi xaggii basicskan ku noqon ay ashyaadu yaalyaaleen. kadibna id-ga ayaad ka bedelaysaa oo imika waa tagas v1.
waxaa u bixin kartaa hello world. waayo hello world baa hadduu bixiyey. haddaba marka efantiga ku noqdo on click aan idhaahdo waa arkaysiin idgu isbedelay hello world buu noqday. select marka id waxaa loo bedelaa si aad ugu kala garato qoraalada ama taga sida kala duwan. kadib waxaan ku leeyahay applicationka marka la taabto qoraalka waxaa ka dhigtaa set tagas waxa weeye qoraalka bedel oo waxaa ka dhigtaa kala magacaygan gelinaya. magacayga waa Khalid saasoo kale ayaan gelinaya kadibna safe. waayo haddaba applicationka markaan hello world taabano Khalid wuxuu soo qoray magacayga waa Khalid. waayo bal haddaan tijaabino. install baa odhanaysaa kadibna oo dhan baa taabani. marka waxaan kasoo furayaa halkan oo ka applicationkii loogadi saaran tahay. haddaba iminka ma taaban balse markaan taabto hello world wuxuu soo qorayaa magacaygu waa Khalid. sawada arkaysiima wuxuu soo qoray magacaygu waa Khalid markaan taabto. marka adiga ayay ku taalo waxaad ku koodgarinaysaa ama aad dhexgelinaysid. halkaas ayuu maanta inoogu joogay casharkeena. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.